gaarnama haysatee sharciga iyo amniga aan aad iyo aad ula shaqeyno si dembi kasta oo dhacay u hortago sharciga taasna aan kala shaqeynaan leenahay. mar kale waxaan leenahay Soomaali waxaan rajeynaynaa midnimo, dowladnimo adag, khilaaf la'aan iyo tanasul iyo inaan ilaashano haybadeena iyo sharafteena. madaxda labada heer dowladeed inta ay ka kooban yihiin munaasabada ku joogaan, shacab weynaha sharafta leh qaybihiisa kala duwan, bahda saxaafadda, fanaaniinta halkan caawa ku soo bandhigay wacdaraha, ciidamada inta lagu joogo, habeen wanaagsan. waxaan rabaa marka hore dadka reer Galmudug gudaha iyo dibadda meel ay joogaanba inaan u diro hambalyo iyo bogaadin oon ugu hambalyeeyo sanad guurada 14 Agost oon idhaahdo sanad guura wacan hambalyo reer Galmudug meel ay joogtaanba iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. caaway sanadkan bishaan maalmahan waxay noo leeyihiin xusuus gaara. waa asaaskii Galmudug. dad badan baa yiraahdaa markii laga hadlayo dowlad goboleedyada Galmudug waxay uga jirtaa meel aan meesha dabaaldega ahayn. annaga waxaan u sanad guurada iyo dabaaldegeenu yahay waa asaaskii Galmudug. markii la isku daray, markii la mideeyay, markii meel kale markii waxaasoo dhan waa ka dambeeyeen, laakiin asaaskii baan u dabaaldegaynaa. waxaan rabnaa halkaa inaan uga ducayno dadkii soo hogaamiyey ilaa waqtigaas intii soo bedeshay, intii dhibatana waxaan leenahay Allah u naxariisto, inta noolna waxaan leenahay waa mahadsantihiin. qofba wax buu soo qabtay, meel buuna wax soo gaarsiiyey. waxaan rabaa sidoo kale inaan mahad celiyo dhammaan dadka munaasabadan iyo xafladan quruxda badan iyo sanad guuradan qabanqabadeeda iyo hawsheeda soo qabanqaabiyey. ayaan idhahdo waa mahadsantihiin. mudanayaal iyo marweyn madaxda sharafta leh dhammaan shacab weynaha reer Galmudug meel aad joogtaanba, runtii wixii dambana waa soo gaarnay, in badanna waa la sheegay caaway muhiimadii iyo wixii waxqabadkii, laakiin laga maarmi maayo sida la xusay inaan wax un isdul taagno. sida la wada xusay reer Galmudug xukuumaddan intii ay joogtay wax badan baa noo qabsoomay ilaahay fadligiis. xukuumadda uma qabsoomin kaliya, waxay u qabsoomeen xukuumadda iyo shacab weynaha reer Galmudug oo gacmaas haysta ayaa shaqeeyey, dhaliyey, ilaahay ku guuleeyey horumarka iyo siday uga gudbeen in lagu habsaamiyo ama lagu waqti looga dhumiyo wax aan meel tegayn amaan macno lahayn. aad iyo aad baan ku bogaadinaya reer Galmudug meel aad joogtaanba. runtii xukuumaddan intii ay jirtay waxaa u qabsoomay horumaro ballaaran oo saameeyey nolosha bulshada reer Galmudug, wax badanna ka bedelay. haddaan caawa qodobo yar idiin dul istaago ma wada halkan kuma wada sharaxi karo. baahiyo hortabin leh ama muhiimad gaara leh ayaa Galmudug xukuumaddan ay degsatay, iyadoo bulshadeeda la kaashanaysa, iyadoo la kaashanaysa saaxiibada caalamka, iyadoo la kaashanaysa cid kasta oo gacan ka heli karto. baahiyihii la dejiyey ama la qorsheeyey ilaahay fadligiisa. waxaad ogtihiin baahi ma dhammaato, laakiin way kala horeysaa. markaan tusaale yar aan bilowno, caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha waxyaabaha noogu horreeyey oo serviceka bulshadana baahi badan u qabtay ayay ahaayeen. waxaad ogtihiin kororka korokaca tay ahaan iyo tiri ahaanba ku timid arrimahaas baahiyahaas.
waxaan noqonnay dowlad goboleedka ugu kororka badan dhinaca waxbarashada tirada maaha waa tira badan ka badan karaa laakiin kororka aan samaynay sida horeba loo sheegay in badan ayaan waxaan nahay dowlad goboleedkii ugu kororka badnaa ee xawli aysan inta kala samayn kororkooda ku yimid dhinaca waxbarashada caaway tuulo ama meel u qalanta ama u muuqata ama oo ayna ka jirin waxbarasho ma jirto galmudug ilaahay fadligiisa sidoo kale caafimaadka meel aynan caaway MCH ama xarumo waaweyn oo caafimaad aysan ka socon magaalooyinka waaweyn meelaha kale fogfogna MCH iyo waxa la gaarsiiyay waxaana runtii caawa ficneed sida uu sheegay wasiir xasan macalin inay sharaxaan wasaaradaha laakiin de anagu si guud aan dulmaraya iyadana caawa meel la gaarsiiyay ma jirto tala waaweyn oo referral hospital ah oo ugu horeeya kan caasimadda ayaa dhismayaashoodii iyo dib u dhiskoodii iyo hawshoodii socotaa hadda la shaqeeya oo caafimaadka xaggiisa biyaha wax badan baa laga qabta baahi biyo ma dhammaato waxaa la gaarsiiyey intaas oo beelood ama ceelasha ama daamamka biyaha qabta ayaa la gaarsiiyey oo runtii aan dhihi karna waxaan nahay meelaha ugu badan ee ka faa'iidaystay ilaahay fadligiisa waxaa jir sidoo kale waxaan isu taagnay aan runtii siinay iyadana muhiimad gaara siinay kaabayaasha dhaqaalaha oo runtii ahaa baahi weyn oo galmudug ay qabto waxaa la yidhaahdaa xitaa dawladdii dhexe meelaha waxay ka mid tahay aan wax badani ka qabsoomin marka laga hadlayo kaabayaasha dhaqaalaha oo aynan wax badan inkastoo dawladdii wixii ay qabatay meelaha ay ka faa'iidaystay ma noqon galmudug kama mid noqon marka waxay ahayd baahida ka jirtay runtii baahi weyn bay ahayd taas ayaan xoogga saarnay inaan tallaabooyin waaweyn hore u qaadno ilaahay fadligiis waxaan ku dhaqaaqnay marka hore wadooyinka kuwa magaalooyinka gudahooda iyo kuwa isku xira gobolada iyo degmooyinka galmudug waxaan rabaa caawa halkan in yar idin dul istaago kuwa wadooyinka gudaha magaalooyinka ugu horeysa caasimadda waxaan si hadda halkaa laga xusay aragteen meel walba oo la jeexayo oo wadooyinkii ay dardar ku socdaan caasimadda magaalooyinka kale waxbaa laga qabtay laakiin caasimaddu hadda iyadoo caasimaddii waxa weeyaan ilaa iyo 25 kilomitir oo magaalada gudaheeda ayaa la dhisayaa oo wata biyo mareenkii ama sewage-kii biyaha ka saaraya magaalada oo intaa oo dhinac magaalada u maraya kuwa isku xiraya wadooyinka isku xiraya gobolada iyo degmooyinka alxamdulilah dagaal badan oo la sameeyey iyo galaanka la sameeyey ilaahay wuxuu nagu guuleeyey hadda saad ogtihiin waxaa bishan agost dabcan dabayaaqadeeda ama dhammaadkeeda bilaaban doona jidkii ka bilaabanaya caasimadda oo aan filayo 60 kilomitir ayuu kaasi ahaa kii markii African Development dhammaaday oo processkii uu soo dhamaado in la bilaabo ay tahay muddo aan fogeyn 2 bil 3 bil ka hor ama xilligaas ah waxaa noo soo baxday 285 kilomitir oo laamiya 140 kilomitir waxaan ka bilownay halka uu ku dhammaaday 60 kilomitir waxaana uu tagayaa magaalada Gaalkacyo 145 kilomitir waxaan ka soo bilownay xuduudda Cabudwa ma dhinaca ku beegan waxaana u wadnaa meesha uu ku dhaco dhinaca Hobyo oo ah dekada mustaqbalka dhow hirgelinaysa insha Allah waxaa sidoo kale dawladda galmudug oo kaashanaysa shacabkeeda sharafta badan haldoorka reer galmudug aan anagu bilownay oo hadda socda dhismaha caasimadda iyo degmada Gurceel u dhaxeeya oo ku dhawaad 70 kilomitir ah haddana qalabkii iyo hawshii lagu qaban lahaa la dhammaystiray intii dawladdu qabatay maana intii kalena ganacsato iyo mas'uuliyiin sharaf leh ayaa qaatay kaalintoodii haddana u taagan gudiyadii iyo hawshii loo saarayna si dardar ay ku socdaan iyadana guul aan reer galmudug anagu u dhisanayno si gaar ah weeyaan saaxiibada iyo deeq bixiyaasha midna ka kaashanay taasna waxay noo tahay guul kale oo aan runtii anagu reer galmudug waxaan isku xilqaanay waa dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha weli aan ku jirnaa saad la wada socotaan waxaan isu taagnay iyadana
oo aan hawl iyo campaign dadaal u galnay cidna inaynaan ka sugin dekedii galmudug alxamdulilah waxaan la kaashanay oo abaabulnay isu keennay ganacsatada reer galmudug inay maal gashtaan kadib markay ku qanceen galmudug halka ay joogto xasiloonida amni xasiloonida siyaasadeed iyo inay u qalanto inay ganacsatadeeduna maal gashtaan kuwa shisheeyana ay maal gashtaan way go'aansadeen caaway qalabkii dekeda hobyo dhismaheeda lagu bilaabayay wax ka maqan oo galmudug gudaheeda ka maqan ma filay hadda laga yaabaa maalmaha inay soo gaaraan hadday jiraanna laakiin dalka dabadiisa wax ku maqan ma jiraan waa lasoo dhamaystira iyadana halkaasay haddii ilaa yidhaahdo dhowaan dekedii ka bilaabanaysa oo ay ku soconaysa hawsheedii sidoo kale waxaan aad aragteen oo la dhisay muddadaas xukuumadda iyo shacabka reer galmudug ay dadaalka bixiyeen hay-adihii wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda qayboodii kala duwanaa caawa waxaan ku faraxsannahay mid la dhisay iyo mid socota inay yihiin dhammaantood ilaahay fadligiisa waad aragteen oon dhamaystirnay galmudug waxay intaasi ugu suurto gashay muuqaalka dadaalka midnimada wadajirka ay dhexdoodana isku qanceen saaxiibada caalamka iyo deeqbixiyaashuna ay ku qanceen sida la sheegay hal mashruuc ama qorshe loogu talagalay galmudug oo aanan cid walba hortiyad isticmaalin ma dhicin weli annaga dhammaynaa isticmaalna haddana kuwa kalaan dalbanaa waa ku faraxsanahay meelaha qaarkood in kastoonaan la jeclayn annagu cidna aanan dibdhac la jeclayn se horeba u sheegnay oon jecelnahay state kasta iyo meel kastoo soomaaliya ka mid a wixii ay hesheen ay ka faa'iidaysato haddana walaalihii ka faa'iidaysan waaya annagaa ka faa'iidaysana taasna waa laakiin iyaga ugama xumine dee annagaa dadaalnay oon maaragtay baahideennada iyo waxaan ognahay hawshan hor taalla taa markaan intaas iyadana idhaahdo waxaan rabaa arrimaha la dagaalanka runtii waxaan sidoo kale aan xusin oo ayadana mudan in la xuso xoolaha iyo beeraha oo ah runtii waxyaabaha reer galmudug ama soomaaliya o dhan ba aan idhaahdo ay hodanka ku yihiin aad iyo aad baa shaqooyinkoodi iyo hawshooda dardar lagu wadaa hadday tahay xanaanadii iyo taxadarkii dee maaragtay daaweydii iyo caafimaadkii xoolaha iyo meelihii loogu samaynayay iyo hadday tahay beerahii oo annaga markaan reer galmudug nahay maxay tahay reer galmudug beera ka hadlaya dad badan is weydiiya oo dadku waxay u haystaan galmudug inaanan beero iyo dad badan baa u haysta adeer galmudug waxaan ka baxayn waa la waayay marka qoladii beeraha sida gaarkaa isusi jirtayo beerihiina waa aragnay inay galmudug meel waxaan ka soo baxayna jirin marka meelihii kaleba beeraha aadka loogu yaqaanayna nicmadii laga heli jiray allaha noo barakeeyo midaana waa helnay taayadiina waa ku darsanay ogaada dhul beereed wax walba ka soo baxaan inaan haysano taasna runtii daal baa lagu bixiyaa aad iyo aad khayraadka kale ee dalka haddee reer galmudug waa saxmad badan yihiine annaga khayraadkii dalka shidaalkii macdantii uraniumkii dhammaan annagu waxaan soomaaliya dhanna wax wey dhul runtii aad iyo aad khayraadkaasi ugu badan yahay weye haddaan nahay reer galmudugna iyo anfaanna la kaga qaadanaya meelaha ugu badan baan isu haysanaa ay tahay sahamadii la sameeyana waa ogtiin in lagu guulaystay ayaduna dhowaan bay soo bixi doontaa haddii ilaa yidhaahdo oo aan isleenahay soomaalina waa ka faa'iidaysaa reer galmudugna waa ka faa'iidaya taasna insha allah waxaana nasiib ah oon ku faraxsannahay inaan noqonnay meelihii ugu horreeyey ee baaris laga sameeyey miro dhashay weliba marka taasna waxay noo tahay soomaalina guul bay u tahay reer galmudugna guul bay u tahay intaa markaan ugu imaado waxaad og tihiin argagixisada dalkan dhibaatada u geysatay soomaali wax badan dadkaas
xalaalaystay dhiigga iyo maalka iyo sharafka dadka muslimiinta Soomaaliyeed dagaalkoodu waa socdaa maalin laga istaagay ma jirto haddana dardar in la geliyo waa lagu jiraa hawsheeda daana reer galmudugna alxamdulillaah rabbil caalamiin dad reer galmudug ah inkastoo dadka Soomaaliyeed isku wada mid yihiin oo kii dhiban anagoo aan ka dhibkiisa ka naxayno dadka reer galmudug deegaanada hadda caawa la tilmaamaysan wada ognahay ayaa dadkeenagii ku dhiban yihiin oo ay ku haystaan haddii ay yeeshee inta xortahay caawa intay leegtahay iyo baaxadda ay leedahay waqti iyadana Soomaali iyo galmudugba annagoo Soomaali uga mid ah si gaarana isu xilqaamayna meelaha qaarkood waxaan aragnaa iyagoo xogaa argagixisay yaraday inta aaday aanan ay noo soo aan nidhi war kuwaa soo bixiya dad baa yidhaahdaa uma iska bixiyaan koonfurta Soomaaliya ama dhinacaan markii la soo aado war Soomaaliya waa isku mid argagixisana waa cadow in meeshii lagu hor joogo in la isugu tago oo lagu kaashadayna u baahan yihiin uma baahna dad mararka qaarkood siyaasiyiin inay ka dhigtaan fan ama ay wax ay sheegaan ka dhigtaan argagixisada ma asaas iska yeelaan argagixisa waa cadow caalamiya dalkaana ku soo duulay marka Soomaali meel ay joogto waxaan rabnaa inaan isku kaashano taasna waxaan leenahay reer galmudug haddaan nahay dadka Soomaali kuwa ugu dhibka yar baan ka midnahay kuwa ugu dhib badan kama mid yihiin argagixisada xaggeeda marka laga hadlayo laakiin dhib Soomaaliyeed meel ka jiraba inuu haysto kama naqaan taasna insha Allah waxaan u daarmaynaa argagixisada inaan isku kaashano sidii horeba Soomaali meel joogtaba xataa kuwa jooga ka tirsan ama kamid ah dawladaha jaarka ah waxaan leenahay hal iskaashado intaas kadib waxaan rabaa inaan iraado arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda anagu Cabdi Axmed caawa xoogaa yar soo leexsho wuxuu yidhi yaan doorasho laydinka weyn waa wadnaa seena la kaga weynaya anagu meelaha kale oo xoogaa hawluhu ku adag yihiin baa midna isla gadaal loo fiiri doonaa haddaan nahay reer galmudug caasimadda kama socotee caaway 10 magaalo ayaa diiwaangelinta loo joogaa oo xafiisyadii iyo xarumihii laga furay diiwaangelinta waana wadaynaa inagu waxaan leenahay dadkayga reer galmudug maba mudna mana astaahilaan doorasho dambe oo jacbura inay galaan maxaa yeelay dadkayga xornimo iyo waxay haystaan nabad iyo fursad ay codkooda ku dhiibtaan inta yaroo argagixisadu joogtana waa sheegnay iyadana Soomaali annagoo iskaashanayna Soomaalida dhanna ka xoreynaa tan insha Allah aan ku sii jeednaa marka dadka waxaana ugu horeeyay annagu doorashaan galeynaa waana u diyaarsannaa annagoo soconna wad ogtihiin guddiyadii doorashooyinka inay noo samaysan yihiin oo dhisanay oo ku dhaqaaqnay oo weliba gacan iyo u helnay taageero ayaa Soomaali in doorashada in la mideeyo aan qaadanay wax ka qaadanay taasaan u istaagnay annagu waa wax walba waa dhamaystirnay oo aan doorasho u gelinahay taasna waxaan leenahay daneeyaasha siyaasadda iyo dhammaan walaalaha Soomaaliyeed wixii dawladnimo Soomaaliya hore u wadaya aan ka wada shaqeyno wax dib u celinaya ama meel aan lugaha isku dhageyno sheegaya yeyna ka shaqeyn xil waa la helayaa cid Ilaahay u qoro laakiin dalka inaan noqono dawlad sharaf leh karaamadii aan ku lahayn fagaarayaasha caalamkan aan la soo noqono aan isugu tagno haddii la yiraahdo maalinba qofka jooga ama cidda joogta ama hoggaanka jooga lugaha lagu dhago ama ha laga daba shaqeeyo waxa laga daba shaqeynayaa qof iyo xukuumad iyo koox midna maana waa Soomaali in dib loo celiyo marka waxaan leenahay walaalaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba nooc ay yihiinba ee daneynaya siyaasadda dadka shacab weynaha Soomaaliyeed dambi iyo eed midna ma lahane aan wixii la qabo la isu qabo yaynaan ku gudbin yaynaan ka dhigin anna Soomaali baan khilaaf iyo qalalaas u horsidaya yaynaan dhihi innaga haddaan reer galmudug kama hore wax badan waa sheegnay horena ugumaynaan qayb qaadan
haddana kama qayb qaadanayno soomaali wax keenaya khilaaf wax dib u celinaya wax isqabsigeed iyo dhibkeeda sheegaya kama qayb qaadanayno horna kama qayb qaadan dowladnimada iyo inaan hore u soconnana dowlad goboleed maanta dowlad noqon kara ama caalamka qolona dhibaysona sukaana dhibaataynaysa mooye qolo kale la macaamili karaa ma jiro marka hadday tahay wejigaagiiba dowladnimada soomaaliya uu yahay magacaagiina dowladnimada soomaaliya yahay war aan dowladnimada iyo qarannimadeena xoog u yeelno sharaf u yeelno haybad u yeelno midnimo u yeelno taas intaasaan faaniyadana ka idhaahdo guud ahaan waxaan leeyahay arrintaas markaan intaas uga gudbo reer galmudug aan rabaa inaan dardaaran yar u gudbiyo ugu dambeyn reer galmudug waxaan leeyahay walaalayaal meel aad joogtaanba dal iyo dabad aan midnimadeena wadajirkayaga wax wada qabsigayaga horu socodkayaga aan ku wada far adeegno ka wada shaqayno waad ogtihiin annagu aan dhahnaa reer galmudug soomaali marka la joogo waxaan la ku tiriyaa dadka soomaali ugu daa'irada dadka soomaali ugu dhib badan haddee dadkayga ma raba saas inaan reer galmudug irahdee dadka ugu dadnimada badan marka mararka qaar dadnimada faraha badan lahaa waxay wax badan ka hadlaysa waxaan leeyahay kuwa ay ku jirto oo mararka qaar maslaxadeena iyo midnimadeena iyo wadajirkanaga iyo horumarkanaga aan isu u muuqan annagoo wada jirna gacantaan ka qabanno horey baan gacanta uga qaban jirnay haddana aan gacanta ka qabanno aanan u aqli celinno hadda baraarug fiican baa jiro oo waagii hore siyaasiyiinta reer galmudug waa iska dhagaxtuur badnaayeen marka hadda kuwii dhagaxtuurka badnaa waa xoogaa waa soo waayeeloobeene kuwa yararkaa cayaar baradka aan kuwaas xoogaa aan cayaarta aan u toosino kuwa siyaasadda hadda ku cusub oo cayaar baradka aan cayaarta u toosino hal meelna aan horay ugu soconno caaway inta aan sheegayno waxaa lagu gaaray midnimo wadajir amni waxa wada qabsi ayaa lagu gaaray higsiga aan leenahayna wuxuu yahay runtii sanadkan sida la sheegay sanadaha soo socda in galmudug halkaa ka sii intaan caawa sheegnay haddii la qabto yacni wadooyin gaaraya ku dhowaad 500 oo kilomitr ayaa socda hawshooda socdaan dekedii ayaa socota waxaa socda khayraadkii dalka inuu soo baxo soo ma waxaa socotaa inaan intaas cadowgu ay ka joogaan galmudug iyo soomaaliba aan ka qayb qaadano taasna waxaan leeyahay reer galmudug iyo biidays naga yeelan kuwa been iska sheegi karaan caawa dhan waxbay sheegayaan reer galmudug oo u baxeen sheegsheegga iyo dhaliilaha faraha badan leh marka dhaliishaas iyagu hadda marar badan waxay sheegaan maba yaqaaniin been bay iska sheegaane been meelaha ka hadleen laakiin yaysan keenin wax galmudug kala qaybin iyo dhib u keenaya intaas aan ka wada fujinaan insha allah bulshada reer galmudug waxaan leeyahay sidoo kale amniga aan ka wada shaqayno hay-adaha amnigana gacanaha la siiyo ma ahan amnigu inaan wax dhacayn ma ahan wixii dhaca sideedaba adduunka meel aan dembi ka dhicin ama aan dhibaato ka dhicin ma jirto wixii dhaca oo qalad ah waa inaan wada qabanno meelna usoo wajeesano waa in ay is arkaan qofka qaladka gala ama dhibaatada geysta iyo sharciga waa in is arkaan muhiimadda waa intaas sharciga iyo qofkaasi waa in is arkaan waxay yidhahdaan dada beelaha ku dirira war soomaali dagaalada ka dhex dhaca iyo dhibaatada ka dhex dhacda annaga hadda ugu nastahaanba alxamdulilah rabbil caalamiin waa logyahay soomaali dhibaatadaas waa iska qabtaa waxaa galmudug meelaha ka dhacana wax soo wada 40 jirsaday 50 jirsaday dowladdii militariga ahayd oo waddankan ugu xoog iyo ciidan badneed ayaa waxaasi dalka ka dhacaya laakiin waxyaabaha aan rabno inaan sal guurino oo ka gudubno weeye soomaalida kalena aan sidaas oo kale la jecelno in ka wada gudubto marka waxaan leenahay dhibaato gaarna ma haysatee sharciga iyo amniga aan aad ula shaqayno si dembi kasta oo dhacay u hortago sharciga taasna aan kala shaqaynaan leenahay mar kale
waxaan leenahay Soomaali waxaan rajaynaynaa midnimo dowladnimo adag khilaaf la'aan iyo tanasul iyo inaan ilaashano haybadeena iyo sharafteena reer galmudug mar kale meel aad joogtaanba waxaan isugu bogaadinaynaa isugu hambalyeynaa sanad guuradan waxaan leenahay sanadkiisa kale horumar iyo midnimo iyo wax wada qabsi allaha nagu gaarsiiyo reer galmudug guul iyo gobonnimo meel aad joogtaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu